madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Gorod waxaa sidoo kale weheliyay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Ali Xasan ayaa maanta soo kormeeray xerada 21aad ee magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay ku sugnaayeen guutada al-Ash'ariyah ee culumadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca kana mid ahaa ciidamadii gobolada dhexe ka saaray ururka al-Shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaana salaan sharaf ka qaatay cutub ka mid ah guutada al-Ash'ariyah waxaana ka warbaxshay ciidamada guutada al-Ash'ariyah iyo sida ay al-Shabaab ula dirireen taliyaha guutadaasi Cabduqaadir Xaashi Diriyahan Bocoor. wadana madaxweyne ciidankan waa ciidankii Ahlus Sunnah wal Jamaaca waa guutada Ash'ariyah ciidankii la gal dagaalamay qawaariista al-Shabaab. munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xarunta 12 magaalada Dhuusamareeb waxaa ugu horeyntii hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uuna ku amaanay culumadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca sida ay wafog yihiin muqaadaraadka qabiilka iyo waliba inay yihiin dad ku diriraya difaaca diinta Islaamka. waxay ciidankan warbixintan ka hayo ciidan diyaarsan oo tababaran oo waxyaalaha maanta ka jira dalka Soomaaliya ilaahay ka badbaadiyay oo ah ciidan disciplin leh muqaadaraadka dhan banaanka iska dhigay mabaadii uu ku dagaalamo leh marka wax la heli karo maahan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya oo dhan maanta farxadana bay u tahay. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Ali Xasan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya guutada al-Ash'ariyah iyo waxyaabaha ay qabtaan uga warbaxshay. ciidamadan aad u jeedo mudana madaxweyne waxa weeye waxay ka hufan yihiin waxyaabaha muqaadaraadka la yiraahdo waa ka hufan yihiin waa ciidan ayaku ilaahay dartiisu xil saaray sidii ay ugu istaageen dagaalkii khawaarijta oo ay iskood ugu bilaabeen. waxa weeye maanta kaaga sheekaymayo horaba wax badan kaaga sheekaynay laakiin hortooda oo aan maanta aad soo istaagtay waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim wixii aad ku dhiirigeli lahayd iyo kelimaadkaagii aad ku farax geli lahayd oo kaydka wanaagsan ahayd u kaydinaysay inaad maanta guddoonsii doontid ayaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gabagabadii hadlay ayaa ciidamadan ku amaanay sida ay gobolada dhexe uga saareen al-Shabaab waxaa dhinaca kale u ballan qaaday ciidamadan inay ka mid noqonayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay helayaan wax walba ay u baahan yihiin waxaana uu sheegay in loo baahan yahay ciidamada kale ee xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku daydaan kuwa culumadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. dalkiina iyo dadkiina oo aad ka xoreyseen oo si wanaagsan aad ula dagaasheen qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah oo Soomaaliya horumarka u diiday inaad u diidaan inay ka soo galaan albaabka ee gobolada dhexe isku xira ilaa Puntland isku xira waxaad u noqoteen darbi waxaad u daadiseen dhiiggiina waxaad u hurteen naftiina runtii waxay tahay arrintaasi arrin ladinku abaalmariyo ilaahayna idinku abaalmariyey annagana dowlad ahaan ay tahay waajib inaan idinku abaalmarino abaalna waa idinkaga haynaa insha allah hadduu ilaah yidhahdana waxaan abaalgud idinkaga dhigaynaa inaad ka mid noqotaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo difaaca u taagan habeen iyo maalinba inaad qayb ka noqotaan garaado iyo dallacsiin hadday noqoto mushaharaad hadday noqoto agab hadday noqoto qalab wax alla wixii ciidan u baahan yahay insha allah inaad heshaan marka waa idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan nagu soo dhaweyseen annaguna waxaan naga ballana insha allah hadduu yidhaahdo inaad noqotaan ciidankii qaranka oo siduu sheegay General Gorod aan magac idiin sameeyno. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. mudane Shaakir aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waxaan rajaynaynaa inaan awoodeenni xoojino inaan tababarno ciidamo kale xeradan burbursanna aan dib u dhisno qalabkii ciidan u baahnaan aan keenno insha allah aan ka horeyno inta hartay shabaabka gobolkan aan ka horeyno.
ibraahim xaasho sable dhuusamareeb